وانك سلامي فيديو كان أديك أيام كوكو طلع عليه وهاي صاحب كي كان نلاش أياتها قف كدونت هو ويل أما جبر تصال أهان بدنا وحين نقول هاي أما فميل أيين نقول هاي أما كلي أيين نقول هاي هذا دويل تاي أما جبر تاي هذا فميل لنا شهي كما دقنا فميل كأد لنا شهي إني وحول بهجاجيان كما دقنا فميل كأد لنا شهي إني وحول بصحان أذيبو حتى وإن أتكخب قاطع وحقت تحيزي تصال أهان waxaan ku hormarayaa dadka kaliya u nool maanta hadaad wiil tahay oo aad jaamacad dhiganaysid ama aad meel ka shaqeynaysid ama gabar aad tahay oo aad jaamacad dhiganaysid ama aad meel ka shaqeynaysid oo aad kaliya nooshahay sida uu qolkaaga ama fadhigaagu ama jikadaadu ay tahay ay maskaxdaaduna tahay tusaalaha waxaan u soo qaatay markii qolkaagu isdhex yaalo ama jikadaadu isdhex taalo ama fadhigaagu isdhex yaalo taasi waxay cadeen u tahay in maskaxdaaduna ay waxyaabo badan iskaga qaaqasan yihiin oo waxyaabo badan isku dhex yaacsan yihiin waana sababta keenta mararka qaar inaad go'aan qaado weysid waa sababta keenta mararka qaar in wax aad ka fikiraysid aad gara weydid waxaan ka fikiraya aad tiraadid waa sababta keenta mararka qaar albaabaad xirtay aad istiraadid alleleemaad xirin oo aad dib ugu soo laabanaysid kadibna aad eegaysid inaadan xirin kadibna aad ogaatay inaad xirtay videogan waxaan ugu talagalay sida ugu fudud ee aan maskaxdeena ku nadiifin karno maskaxdeena in aynu nadiifino waxa ay ka bilaabanaysaa sida qolkeena ama jikadeena ama fadhigeena uu u yaalo tusaale ahaan maanta haddaad gabartaa ama wiil tahay haddii gabar aad tahay uu diric kaa lumo ama wiil aad tahay oo shaati kaa lumo oo qolkaaga kaaga lumo qolkuna uu isdhex yaalo waqti ayay kuu qaadanaysaa shaatigaas inaad heshid ama gabar haddaad tahay waqti ayay kuu qaadanaysaa inaad diracaad heshid waayo qolkaaga oo dhan ayaa isdhex yaala waxaana laga yaabaa diracaasi aad raadinaysid inuu meel dhow yaalo sidaas si lamida waxyaabaha maskaxdeenna go-aanadeenna fikradaheenna iyagoo meel dhow yaalaan oo aan go'aan qaadan karno ama fikir aan sameyn karno baa laga yaabaa inaan isku mashquulino aan maskaxda iska mashquulino waxaan ku dhihi lahaa sida ugu fudud ee aad maskaxdaada ku nadiifi karto waxay tahay ma ogtahay maalintii qofka bini'aadanka 60,000 oo fikir in fikradii maskaxdiisa ay kusoo dhacdo fikradaas maxay mataqaanaa inaad isbarbar dhigayso qof inaad isdhehayso maxaad u liidataa inaad isdhehayso maxaysaan kuugu hagaagi weysay inaad adigu maxaasaan u sameyn weysay waa fikradahaasi maalin walbana way kugu soo laabtaan waxaan ku dhihi lahaa sida ay qolyahan cilmi nafsiga bartay ay dhaheen 60,000 ayuu qofku maalin walba ku fikiraa fikradahaasi maskaxdaada kusoo dhacayo waxaan jeclaan lahaa 60,000 waxaa kaaga muhiimsan 10 fikradood oo aad maalintii ay kuu noqoto wax maalin walba kugu soo noqnoqdo aad ka fikiri kartid oo aad ratid inaad go'aan ka gaadhid sida ugu fudud ee aan maskaxdeena ku nadiifi karno waxa ay ka bilaabanaysaa meesha aynu ku noolnahay marka aad qolkaaga soo gashid tusaale ahaan haddii maanta ay hal shay kaa lumo fikradihii aan maanta fikiraysay buu shaygaasi ka mid noqonaya waayo maanta dhan baa ka fikiraysa waxaa is leedahay shaygaygii wixii waxaan laga yaabaa meel dhow inuu yaalo waxaan kula tali lahaa marka hore si maskaxdeena nadiif ay u noqoto si fikradaheena iyo go'aamadeena ay u noqdaan kuwa hirgala qolka aynu ka bilowno inaan hagaajino jikada aynu ka bilowno inaynu hagaajino fadhiga aynu ka bilowno inaynu hagaajino xitaa haddii dad kale ku nool yihiin isku day inaad wax qabatid waayo maskaxdaadu waxa ay baranaysaa hagaajinta mar walba waxaa noqonaysaa mid maalinta ka dambeeyo wax hagaajiya waxyaabaha kale oo ugu fudud ee maskaxda lagu nadiifiyo waxaa ka mid ah in maalintii aad yeelatid saacado gooni ku ah shakhsiyan meel fadhiisan kartid tartiib neefsan kartid tartiib buuq la'aan muran la'aan
adiga kaliya nafsadaada aad ku mashquuli kartid oo aad ka fikiri kartid waxa kuu wanaagsan iyo waxa kuu xun. maskaxda waxa kale ku nadiifi kartaa waxa ay tahay inaad ku dadaashid samaynta isboortiga. waxa aad kale ku nadiifi kartaa oo aad ugu muhiimsan inay tahay aqrinta buugaagta noocay doonta ha noqoto. waxaa laga yaabaa maanta markii lagu yiraahdo buug aqri inaad ka fikirtid buugu noocuu doon ha noqdo, waayo buugga marka aad aqrinaysid maskaxdaada fikirro badan ayay keenaysaa, maskaxdaada way shaqaynaysaa. waxaan aad aqrinaysid waxaa laga yaabaa inaadan adigu niyad u haynin, laakiin waxyaabo kale ka fikiraysid. ka fikiridda ee maskaxdaadu ka fikiraysa waxyaabaha kale waxay ku sahlaysaa maskaxdaadu inay kobacdo. maskaxda ku dadaal inaad nadiifisid, waxaadna ku nadiifi kartaa waxyaabaha aan soo sheegay. assalaamu calaykum. videogan haddaa ka heshay waxaan jeclaan lahaa inaad share iyo laagta iyo wixii fikradaha inaad commenti iigu reebtid, qoraal ahaan iigu reebtid. waana kaaga mahadcelinayaa daawashada aad daawatay.